maanta kiiskan wuxuu ku saabsan yahay haweeneydaas oo riyadeeda ugu weyn ahayd inay dhisato qoys iyada u gaar ah, sidoo kale inay degto meel iyada u gaar ah, ayna yeelato gabar iyada u gaar ah, yacni gabar iyada ay dhashay, ayna sidaas ugu noolaadaan iyadii qoyskeeda. Laakiin dilaagu wuxuu lahaa aragti kale oo ka duwan tii iyada ay leedahay. Assalaamu calaykum, Ramadaan mubaarak. Allah naga aqbalo soonka, salaada, ducooyinka iyo camalka wanaagsan. sidoo kale bishaan haynoo noqoto mid caafis, barako iyo nabad inoo horseeda. inta lagu guda jiro bishan barakeysan Ramadaan, maalin walba halkan waxaa kusoo gudbin doonaa qiso cusub. kiiskan maanta wuxuu ku dhacay magaalada Al-Salaam ee Qaahira. halkaasina waxaa ku noolad haweeney lagu magacaabo Samaax Saabir, waxayna ku jirtay bilowga kontimeedyada. Samaax waxay dhalatay sanadkii 1970kii, waxay la nooleed qoys ayada jecel, caruurnimadeedan aad bay u faraxsaneyd. Samaax waxay ka dhalatay qoys ku nool dabaqada dhexe, ma ahayn hodan, sidoo kale mana ahayn faqri. markii ay yareedna waxay aad u jeclayd waxbarashada, mar walbana waxay ka mid ahayd ardayda ugu sareeya. hadafkeeduna wuxuu ahaa inay sii wado waxbarashadeeda oo ay hesho shahaado si ay mustaqbalka ugu shaqaysato. sidaas darteedna way weynaatay oo waxay gashay kulliyadda ganacsiga. 4 sano kadib way dhamaysay jaamacaddii, waxayna ka shaqo bilowday shirkad gaar loo leeyahay. markeedu ma ahayn mid sare, balse iyadu way ku faraxsaneed oo waxay la nooleed qoyskeeda. sidaas darteed wax qarash ah ma aysan bixin jirin, mana jirto kiro ay bixinayso, sidoo kalena biilal ama cunto ay bixin jirteena ma jirin. qoyskeeduna si dhab ah ay u daryeeli jireen, mar walbana waxay ku odhan jireen mushaarkaaga waa inaad adigu kaydsataa. sidaas darteed Samaax mar walba waxay isku dayi jirtay inay mushaarkeeda kaydsato. runtii way aruursatay lacagteeda. dhowr sano kadibna waxay go'aansatay inay iibsato guri dabaqa oo iyada leedahay. gurigaasina wuxuu ku yaalay xaafad ay dad fara badan degan yihiin. guriga muusan ahayn mid raaxa ah, yacni mid qurux badan, balse wuxuu ahaa hanti iyada gaar u leedahay. waxayna dareentay inay ugu dambeyn heshay boqortooyadeeda iyada gaarku ahayd. markii ay heshay furayaasha guriga, waxay ahayd mid aad u faraxsan, waxayna ka mid ahayd maalmaha ugu farxadda badnaa ee nolosheeda, sababtoo ah waxay heshay guri uu ku qoran yahay iyada magaceeda. muddo kadib walaalaheeda dhammaan way wada guursadeen oo gurigii qoyska bay ka tageen, laakiin Samaax waxay la sii nooleed aabaheed iyo hooyadeed ilaa ay ka geeriyoodeen. iyagana muddo kadib markay geeriyoodeen waxay qaadatay dhaxalkeedii sharciga ah, lacagtiina bangiga ayay dhigatay, waxayna ka samaysatay shahaadooyin maalgashi si ay ugu noolaato faa'iidooyinka billaha ah. shahaadooyinka maalgashiga, qofkaan garanan micnahooda, waa in qofka bangiga dhigto lacag cayiman, tusaale ahaan $1, kadibna bangiga uu ku siiyo faa'iido billa ah oo laga yaabo inay gaarto $100 ama in ka badan. taasina fikrad guud inay hesho faa'iido ka timaada lacagta ayada bangiga dhigatay. Samaax waxay ku nooleed faa'iidadaas ay bangiga ka qaadan jirtay, maadaama guriga ay qoyskeeda kula nooleed la iibiyey oo dhaxalkiin la qaybiyey. markaasna waxay gurtay gurigii ay horey u iibsanaysay. markii halkaasi gurtayna dabcan waxay nooleed ayada keligeed. inkasta oo ay keligeed ahayd, haddana xiriirkeedii aad buu u wanaagsanaa oo dhammaan qoyskeeda waxay la lahayd xiriir wanaagsan. aysan wada hadli jirin maalin kasta, mana kulmi jirin maalin kasta, balse haddana mar walba way iska warhayi jireen. mar walbana way la xiriiri jireen si ay ugu warhayaan. deriskeedii dhismaha deganaana ayaguna had iyo jeer way ammaani jireen, sababtoo waxay ahayd gabar adab leh, wax qalad ahna laguma arki jirin. dhaqankeeda dadku wuxuu ahaa mid jilicsan oo naxariis leh. runtii Samaax waxay ahayd qof jecel nabadda, cidna arrinteeda ma fargarin jirin, sidoo kalena way necbaan jirtayba inay abuurto wax dhibaato ah. laakiin Samaax nolosheeda ma aysan ku qanacsanin, mana dareemin farxad, sababtoo waxay nooleed keligeed. markii hore waxay la nooleed waalidkeed, balse way geeriyoodeen. walaalaheed inkastoo ay wada xiriiri jirin, haddana mid waliba wuxuu lahaa nolol u gaar ah, yacni way guursadeen, sidoo kalena waxay dhisteen qoys iyaga u gaar ah, iyadoosa keligeed ayay nooleed. sidaas darteed Samaax waxay si weyn u rabtay inay guursato, inay hooyo noqoto oo ay mar kale dhadhamiso macnaha qoyska ama macnaha nolosha. Samaax sanado fara badanba waxay rajaynaysay ama waxay rabtay inay dhisato qoys iyada u gaar ah. ugu dambeyn bilowgii afartamaadkeeda ayay waxay la kulantay nin lagu magacaabo Maxamed. isagana wuxuu ku jiray dabaaqadii afartamaadkiisii, maadaama labadooda da'dooda ay weyn tahay. xiriirkooda ma uusan noqon sheeko jacayl, weliba sheeko jacayl oo xamaasad leh, balse wuxuu ahaa mid qaraar oo ku dhisan caqli. waxayna ku heshiiyeen guur qaab dhaqameed ah. Maxamed wuxuu si rasmi ah ugu doontay walaalaheeda wayna isguursadeen. Maxamed ma uusan lahayn guri isaga u gaar ah, sidaas darteed wuxuu soo guuray guriga Samaax, iyaduna way ogolaatay iyadoo aan ka dhigin wax dhib ah, sababtoo ah waxay aragtay inuu yahay qadarkeeda, ayna rabto inay dhisato qoys. arrintaasi guriga ayada ma aysan ku noqon caqabad. bilowgii guurka Samaax waxay dareemaysay walaac ku saabsan dhalmada, sababtoo ah way ogeed da'du inaysan ayada u helin doonin, waxayna ku jirtay afartamaadyadeyda, waxaana suurtagal ahayd in uur qaadistu aysan u fududaan. waxayna si weyn u rajaynaysay inay u dhasho si degdeg ah ka hor inta aan waqtigu ka dhammaan. runtii muddo aad u gaaban kadib, sanadkii 2012 waxay dhashay gabar yar oo qurux badan oo lagu magacaabo Naahid. dabcan
samaax markay aragtay naahid oo ay ku qabatay gacmaheeda. samaax waxay maraysay heerka ugu saraysay ee farxad. ugu dambeyn waxay noqotay hooyo, laakiin farxadaasi ma dhammaan. sababtoo ah waqti aad u gaaban kadib dhalashada naahid waxaa bilaabmay khilaafyo u dhexeeya iyada iyo maxamed. dhibaatooyinku waxay soo baxeen wax ka yar sanad kadib dhalashada naahid. walaalkeeda wuxuu sheegay maxamed iyo samaax labadoodaba gebi ahaan inaysan isfahmi karin, sababtoo ah mid walba wuxuu lahaa qaab fikir oo ka duwan kan kale. samaax lafteedu waxay walaalkeed u sheegtay inaysan awoodin inay naahid kusoo koriso qoys oo jawigiisa ku jiro buuq iyo dood. maadaama guurkoodu ahaa mid ku dhisan caqli iyo heshiis, waxay go'aansadeen inay si degan u kala tagaan. dhowr sano kadib guurkooda, kala tagooduna wuxuu ahaa mid heshiis iyo is-afgarad ku dhacay, mana jirin ismaxkamadeen, muran ama dagaal. markaasi maxamed wuxuu qabtay albaabka wuxuuna ka soo baxay guriga, laakiin dhibaatadu waxay timid kadib kala taga. maxamed keliya ma uusan ka tegin samaax, wuxuu si buuxda uga tagay gabadhiisa kadib furiinka. naahid iyo samaax midkoodna mar kale ma uusan arag maxamed, waxayna u ekeed inuu si lama filaan ah uga baxay noloshooda oo dhan, isaga oo mas-uuliyaddii oo idil ku reebay samaax. kadib furiinka, samaax waxay isku qasabtay inay ku laabato shaqadeeda, waxayna subax kasta aadi jirtay shaqo. naahidna waxay ku reebi jirtay xanaanada. ay kasoo laabato shaqadeedana way soo qaadan jirtay gabadheeda, kadibna guriga ay kusoo laabin jireen labadoodaba. muddo kadib naahid way kortay, samaaxna iyaduna way sii da'aysatay, mana aysan suurtagelin inay maamusho dhammaan mas-uuliyadda saarnaa dusheeda. waxay ahayd waxaan macquul ahayn inay shaqaysato, gabadheeda korsato, guriga daryeesho, wax walbana keligeed ay qabato. samaax markaas waxay bilowday inay dareento maalintii oo dhan inay joogto shaqada. markay guriga timaadana ay daalanta oo tamarteedaba eber ay tahay, ma aysan awoodin inay naahid siiso daryeelka iyo barbaarinta ay rabtay. sidaas darteedna waxay dareentay inaysan sidan kusii wadi karin shaqada. halkaas ayayna ku go'aansatay samaax inay kasoo go'do shaqada oo ay u go'do korinta naahid, gaar ahaan maadaama ay ku nooleed faa'iidada bilaha ee ka imaanaysay shahaadooyinka, weliba kuwii maalgashiga ee bangiga ay dhiganaysay oo ay ka yimid dhaxalkii waalidkeed. runtii laga bilaabo 2014 ilaa 2024 noloshoodu waxay ahayd mid degan. samaax waxay si buuxda ugu helneyd korinta gabadheeda naahid oo noqotay wax walba oo nolosheeda ah. nolol kalena maba aysan lahayn oo nolosheeda idilba waxay ahayd naahid, laakiin wax walba waxay isbedeleen taariikhda markay ahayd 3 May 2024. samaax walaaleeda midkii ugu yaraa oo degnaa meel u dhow gurigeeda, caadi ahaana maalin kasta wuu imaan jiray si uu ugu warhaayo oo uu hubiyo xaaladooda. midkaani yar wuxuu caado u lahaa maalin kasta inuu soo booqdo, uu arko baahidooda, uuna soo iibiyo waxyaaba ay u baahan yihiin, islamarkaana uu soo salaami naahid oo ahayd gabadhiisii yareed. balse maalintaasi markii uu soo dhaqaaqay guriga, samaax wuu yaabay sababtoo ah albaabku wuu xirnaa. gurigan wuxuu lahaa 2 albaab, mid alwaax ah iyo mid bir ah. samaaxna labadaba furaha ay ku xirtay. markuu arkay in labadii albaab si furayaal ah loo xiray, wuu ka shakiyey sababtoo ah caadiyan waqtigaasi sidaan looma xirin jirin albaabada. markaas ayaa wuxuu bilaabay inuu garaaco albaabka, islamarkaana waxa uu jawaabtay naahid iyadoona gudaha ku jirtay. markaas naahid waxay bilowday inay ooydo, abtigeedna waxay u sheegtay hooyadeed inay ka baxday guriga muddo ka hor si wax usoo iibiso, ilaa haddana aysan soo laaban. walaalkii yaraa ee samaax dabcan wuu weydiiyey gabadha, isagoona ku dhahay muddo intee leeg ayay maqan tahay, goorma ayay baxday. naahidna waxay ugu jawaabtay inay iyaduna la yaaban tahay sababtay usoo daahday, maadaama hooyadeed aysan caado u lahayn inay muddo dheer ka maqnaato. markaas iyo abtigii wuxuu isku dayay inuu dejiyo naahid maadaama ay keligeed ku jirtay guriga. markaasuu ku yidhi hooyo way soo laaban doontaa, adigana guriga joog oo ha ka bixin, anigana caawa baan idin soo laabanaya. waqtigaasi samaax walaalkeeda wuxuu degdegayay shaqada, mana uusan awoodin inuu sii sugo, wuxuuna aaminsanaa inaysan macquul ahayn inay samaax gabadheeda keligeed ka tagto muddo dheer. sidaas darteedna wuxuuba aaminsanaa inay soo laaban doonto. si kastaba ha ahaatee wuxuu isku dayay inuu waco teleefonkeeda, balse nasiib daro teleefonkeeda wuu dinsanaa. inkasta isagana uu welwelay, haddana wuxuu isku qanciyey inay soo laaban doonto oo iyada ay joogto meel aan lahayn shabakad. laakiin waqtigana wuu sii socday, qoraxdana way dhacday, islamarkaana waxaa la gaaray haween. wuxuuna mar kale isku dayay inuu waco, laakiin teleefonka wuu dinsanaa. halkaasi ayuun walaalkeeda wuxuu ku dareemay arrintu inaysan caadi ahayn. wuxuu gartay in walaashiis aysan marnaba sidan samayn lahayn, suurtagalna aysan ahayn inay teleefonkeeda damiso, gaar ahaan iyadoo mas-uulka ah gabadheeda, islamarkaana walaalaheed mar waliba ayada la xiriiraan. markaasi ayaa wuxuu go'aansaday inuu mar kale aado gurigeeda, wuxuuna is yiri waxaa laga yaabaa inay soo laabatay oo ay joogto guriga. laakiin markuu halkaas yimaaday, wuxuu ogaaday in labadii albaabkan birta iyo kan alwaaxdaba labada weli ay si adag u xiran yihiin. walaalka yar mar kale ayuu garaacay albaabka, laakiin waxaa u jawaabtay naahid, waxayna u sheegtay inaysan weli soo laaban hooyadeed. waqtigaas saacadu waxay ahayd qiyaastii 8 fiidnimo. markaas ayaa wuxuu go'aansaday guriga inuu gudaha u galo si uu arko gabadha, maadaama guriga keligeed ku jirtay. wuxuu ogaa isaga in samaax mar waliba ay reebi jirtay furayaalkeed ah oo guriga dhexdiisa ku jira. markaasi ayuu naahid wuxuu ka codsaday furaha inay ugu soo tuurto daaqada musqusha, maadaama daaqad musqushan ay ku jiiday jaranjarada dhismaha. naahid waxay isku dayday inay gaarsiiso furaha, ugu dambeynna
way siisay isaguna wuxuu sidaa ku furay albaabka waxa ugu horeeyay ee uu sameeyay waxay ahayd inuu cunto soo iibiyay gabadhiisa sababtoo ah uu ogaa subaxdii ilaa hadda inay ku jirtay guriga iyadoo aan waxba cunin kadibna way wada fadhiisteen welibana ayagoo sugaya Samaax balse saacadaha way sii socdeen Samaaxna weli ma aysan soo laaban taleefankeeduna weli wuu dansan yahay walaalkeedana markaas ma uusan sii joogin guriga wuxuu go'aansaday inuu naad u kaxeeyo gurigiisa halkaasina waxaa joogto xaaskiisa sababtoo ah suurtagal ma in gabadha kaligeed meeshaas looga tago welibana iyadoo aan la ogeyn halkay Samaax ku maqantaa ilaa hadda kadibna wuxuu wacay dhammaan walaalihiisa si uu weydiiyo haddii Samaax midkood ay la sii joogto laakiin dhammaantood waxay ku jawaabeen inaysan ka helin wax war ah halkaasi ayuu isagan wuxuu go'aansaday inuu aado saldhigga booliiska si uu warbixin rasmi ah ugu gudbiyo maqnaanshaha walaashiisa walaalkeedana wuxuu tagay markaas saldhigga booliiska waqtigan wuxuu ahaa saacadaha hore ee beriga 4 May 2024 wuxuuna u sheegay booliiska dhammaan faahfaahinta uu ogaa in walaashiis la weysay saacado fara badan in gabadhii yareed ay kaligeed kaga tagtay guriga albaabkan uu xirnaa isla markaan dhammaan isku dayadii uu kula xiriiri lahaana ay fashilmeen taleefankeeduna ilaa haddana uu dansan yahay markaasi ayaa waxaa la bilaabay habraacyadii caadiga ahaa wuxuu siiyey magaceeda lambarkeeda taleefankeeda iyo sawir si haddii meel lagu arko loo aqoonsado kadib markii la diiwaangeliyay xogta waxaa laga codsaday inuu guriga ku laabto inta soo xiriiri doona haddii ay wax cusub soo baxaan ama ay soo kordhaan laakiin walaalkeed wuxuu dareemayay inay jiraan waxyaabo aan caadi ahayn mana uusan awoodin inuu si fudud u sugo halkii uu guriga ku noqon lahaa oo eeda sugi lahaa wuxuu bilaabay inuu sameeyo baadigoob isagoona baadigoob ku sameeyay dhammaan wadooyinka xaafadaha u dhow guriga walaashiisa wuxuuna islahaa waxaa laga yaabaa inuu qof arko ama qof uu aqoonsado mana suurtagal ah inay sidaan oo dhan u sii maqnaato kadib markii wadooyinka muddo ku soo wareegayay haddana markale wuxuu ku laabtay gurigeeda isagoon rajaynaya inay soo laabatay laakiin maya ma aysan soo laaban 2 maalmood oo buuxda ayay Samaax iska maqneed raad la'aan erey la'aan ilaa 5 May 2024 maalintaasi mid ka mid ah shaqaalaha nadaafadda ay ka shaqeeya meel qashin lagu shubo ayaa dhex wareegay qashinka isagoona raadinaya balaastig uu kala sooco intii uu ku jiray baadigoobkii wuxuu arkay waxyaabo shaki leh oo isaga cabsi geliyay taasi oona joojisay shaqadiisii sababtoo ah wuxuu arkay bacweyn oo madow markuu u dhawaadayna oo uu furay wuxuu arkay wax aan la filaynin wax aan ahayn inay ku jirto bacdaasi wuxuu arkay qaybo ka mid ah jir bani aadam shaqaalihii nadaafadda si degdeg ah ayuu u aaday saldhigga booliiska wuxuuna ku wargeliyay wixii uu ku arkay meeshaasi wuxuu kaloo sheegay kahor intuusan furin bacda madow uu arkay qof bacaha madow isla goobtaasi ku tuurayay taasi macnaheedu waa in bacdaasi uu qofkaasi tuuray ay ahaayeen kuwii laga helay qaybo jir ah shaqaalihii nadaafadan wuxuu sheegay in qofkaasi u fiiriyay si gaar ah wuxuu kaloo sheegay in ninkaasi uu dhaqmayay si shaki leh marba marka kasii dambeys meel uu dhaqaaqay haddana dib u soo laabanayay si kastaba ahaatee markaasi si buuxda umuusan tiirada saarin laakiin aniga waxaan u qaatay ayuu ku dhahay inuu yahay qof iska caadi ah oo qashin tuuraya laakiin markii uu dhawaaday bacihii oo ninkaasi tuurayay ayuu ogaaday in arrintu halis tahay booliiska markiiba waxay weydiiyeen su-aashii ugu horeysay sidee ayuu ekaa ninkii bacaha tuurayay shaqaalihii nadaafadda wuxuu isku dayay inuu sharxo dhererkiisa iyo midabkiisa wuxuuna sheegay inuu ekaa nin ku jira 60meedyadiisa laakiin ma uusan awoodin inuu bixiyo faahfaahin sax ah sababtoo ah si cad umuusan arkin wejigiisa balse booliiska si degdeg ah ay u aadeen goobta waxayna bilaabeen inay baaraan oo ay furaan bicii uu sheegay shaqaaluhu nasiib daro wax waliba uu sheegay waxay noqdeen run waxay heleen bacahaasi madow oo ay ku jireen qaybo jir bani aadam ah oo la jarjaray arrintu waxay ahayd mid cabsi leh oo argagax leh xitaa booliiska laftoodu shaki kuma jirin inay naxeen markay arkeen bacaha iyo waxa ku jiray balse dhibaatadu halkaasi maysan ku istaagin warbixino kale ayaa yimid kuwaasoo ka yimaadeen meelo kala duwan dhammaantoodna waxay sheegeen in la helay bacaha madow ee isla noocaas ah oo ayna ku jiraan isla wax la mid ah qaybo jir bani aadam ah isla waqtigaas booliisku way wareereen ma qaybahan waxay ahaayeen hal qof oo keliya base waa dhowr qof sidoo kale waxay isweydiiyeen ma suurtagalba in tani ay tahay fal uu geystay dambiile taxane ah markaasi ay waxay go'aansadeen dhammaan bacahaas inay aruuriyaan oo diraan baaritaanka caafimaadka sharciga ama farsayniga si loo xaqiijiyo in waxa ku jira ay ku wada tiirsan yihiin hal qof ama dhowr qof kadib markii ay soo bixeen natiijooyinkii baaritaanka waxaa la ogaaday xaqiiqooyin nacdin dhammaan qaybihii la helay waxay ku wada tiirsanaayeen hal qof oo keliya laakiin dhibaatadu weli lama xalin oo way taagan tahay dib markii la aruuriyay dhammaan qaybihii laga helay bacahaasi waxaa la ogaaday in jirku dhamaystirnaa laakiin waxaa ka maqnaa waxay ahaayeen gacmaha iyo madaxa baaritaan faahfaahsan kadib waxaa la xaqiijiyay in jirku ku tiirsanaa haweeney ku jirta bilowga kontumaadyadeeda booliiska isla markiiba waxay bilaabayaan inay isbarbar dhigaan natiijooyinka iyo warbixinada maqnaanshaha ee dhawaan la helayay ilmaamaha jirkan haweeneyda ah waxayna si buuxda ugu ekaayeen Samaax
sidaas darteedna booliiska waxay la xiriireen walaalaheeda si ay u qaadaan dhiig DNA ah si loo xaqiijiyo in jirkan uu yahay Samaax iyo in kale. sababtoo ah suurtagal maysan ahayn in loo aqoonsado qaab muuqaal ah. gacmihii way maqnaayeen, wejiguna ma uusan ku jirin, mana aysan jirin faro ama astaamo lagu garan karo. sida keliya lagu ogaan karayna waxay ahayd in laga baaro DNA-da. dhowr maalmood kadib natiijadii DNA-da ayaa soo baxday, waxaana timid markaasi naxdintii ugu weyneed. jirka wuxuu ahaa kan Samaax Sabri. halkaasi ayaa waxaa ka bilaabatay marxalad cusub oo kiiska ah. su'aalaha oo dhan la isweydiinay waxay ahaayeen kuwa argagax leh. yaa dilay? maxaa loo dilay? sidee qof bini'aadama u gaari karaa inuu dilo haweeney ku jirta kontumaadyadeeda taasi oo aan dhibaateyn jirin cidna? sidee qof oo jarjari karaa jirkeeda, uga ridi karaa bacaha, uguna tuuri karaa meelo ka duwan meelaha kale? weliba hal meel maaha, meelo kala duwan ayuu ku tuurtuuray. yaa samayn kara arrin sidaani oo dhan u arxan daran? maxaase sababay? booliiska markaas waxay bilaabeen inay baaraan dhammaan xiriiradeeda ay dadka ay taqaanay, qaraabadeeda, dariskeeda iyo cid kasta oo u dhowey. waxa ugu horreeya ay diiradda saarayeen waxay ahayd dadka ugu dhow Samaax. waxay isweydiiyeen, ma jiraa qof qoyska ka mid ah oo khilaaf ka dhexeeya labadooda? ma jirtaa dhibaato hore dhex martay waalidkeeda? ma suurtagalba in ninkeedii hore Maxamed ku lug leeyahay midaan? laakiin baaritaanka kadib waxaa la xaqiijiyay in dhammaan xiriiradeeda iyo walaalaheedba uu ahaa mid caadi ah, wax dhibaato ama khilaaf ahna aysan jirin, mar walbana ay isku wici jireen si ay isaga warhayaan. dhanka kale Maxamed iyo iyada gebi ahaanba xiriirkooda wuu go'naa. tan iyo maalintii ay kala tageen marnaba ma aysan xiriirin, xitaa Naahid weligeed ma aysan arag aabaheed. mas-uuliyadda oo dhanna waxay saarneed Samaax. iyada ayaa soo korsatay, daryeeshay, qarashna ka bixisay. ninkana wuuba iska maqna oo gebi ahaanba wuxuu ka baxay noloshooda. markaasi booliisku waxay bilaabeen baaritaanka inay ka bilaabaan qofka ugu dhawaa oo mar walba joogay hareeraheeda. walaalkeeda ugu yaraa ma ahan inuu yahay eedeysanaha, balse isaga ayaa ah qofka ugu xoog ogaalka badan xaaladeeda. markaasi waxay weydiiyeen, iyadu ma lahayd cadow? ma jirtay qof ay dhibaato kala dhaxaysay? ma jirtaa qof ay ka caban jirtay ama ay ka baqaysay inay waxyeelo u geysato? markaasi walaalkeed wuxuu sheegay keliya inuu jiro qofkaas oo ka dhaxayso cadowtinimo daran. cadowtinimadaasina waxay socotay muddo 4 sano ah. qofkaasina wuxuu ahaa dariskeeda oo isla degan dhismaha. dariskaasina wuxuu ku noolaa dabaqa hoose ee gurigeeda. dhibaatooyinkana waxay bilaabmeen markii isaga iyo carruurtiisaba ay go'aansadeen inay ka iibsadaan dhammaan guryaha ku yaala dhismaha, iyagoona qorsheynaya inay yeeshaan dhammaan dhismahaasi. markii ay iibsadeen dhowr guri oo ku yaala dhismaha, waxay u tageen Samaax si ay uga iibsadaan gurigeeda. dariska ayaana la hadlay Samaax, wuxuuna u bandhigay inay ku iibsato guriga. Samaax waxay degneed dabaq afraad, ayagoon waxay degneen dabaqa hoose. laakiin Samaax wax diidmaa maysan ka qabin inay iibiso guriga, xitaa waxayba jecleed inay u gurto meel ka fiican xaafadeed ay degan tahay. laakiin farxaddaasi ma aysan sii baarin, sababtoo ah dariska ayaa si lama filaan ah ugu bandhigay qiime aad u hooseeya. sababtoo ah lacagtii ay soo bandhigeen aad bay u yareed, mana aysan ku filnayn inay ku iibsato guri la mid ah meel kale. xitaa ma aysan gaarsiin qiimaha dhabta ah ee gurigeeda ku iibsatay markeedii hore. markaas ee Samaax waxay la tashatay dad kale, waxayna ogaatay gurigeeda inuu ka qiimo badan yahay lacagta la siinaya. halkaas waxay ku fahantay dariska inuu maleynayo inay tahay haweeney keligeed ah oo laga yaabo inay ka baqayso ama aysan aqoon u lahayn qiimaha suuqa, si ayagana ugu faa'iideystaan. sidaas darteedna si cad ayay ugu sheegtay in qiimaha ayaga ay sheegan ay ahayn mid cadaalad ah, yacni inay hooseyso. wayna ka diiday inay ka iibiso laga bilaabo daqiiqadahaasi. cadowtinimo muuqata ayaa ka dhex bilaabatay ayaga iyo dariskeeda. markaasi ay dariska waxay bilaabeen inay cadaadis saaraan oo ay abuuraan dhibaatooyin. bilowga hore waxay samayn jireen hadallo ay erayo ayaday ku dhibayaan ama ayaday ku xanuujinayaan. adaga guriga keliis ma uusan dhibaateyn jirin, xitaa carruurtiisa way dhibaateyn jireen. maalin kastana waxay abuuri jireen dhibaato, hadalkoodana way sii xumaynayeen. arrintu xitaa waxay gaartay heer ay Samaax bilowdo inay dacwo ka gudbiso isagii wiilashiisa, sababo la xiriira aflagaado, cabsigelin iyo hanjabaad. laakiin mar kasta ay gudbiso dacwo, isagana dariska wuxuu gudbin jiray dacwo si uu kiiska isugu dheelitiro, labada dhinacba ugu tanaasulaan, ugu dambeynna loo xiro. walaalkeed wuxuu sheegay inay Samaax iyo Naahid xitaa ay ka baqi jireen inay u baxaan banaanka, iyagoo ka cabsan jiray aflagaado ama xitaa gacan loo qaado. mar ayuuna walaalkeed kula talin guriga iska joogto aysan u soo bixin banaanka, laakiin Samaax way diiday, waxayna ku adkaysatay inaysan wax qalad ah samayn doonin. sidaas darteedna aysan isku xirin guriga dhexdiisa. iyaga ayaana ahaa kuwa samaynaya qaladka, iyaga ayaa caynaya, sidoo kalena iyaga ayaa weerarayay. maalin kasta Samaax way oo jirtay, waxay sheegtay inay cabsi qabto, xitaa ay ka baqayso badbaadada gabadheeda. waxay rabtay inay gudbiso dacwad dhab ah oo xitaa gaarta maxkamad, sababtoo ah ma sii qaadi karin ama sii wadi karin xaaladaasi. dhammaadka bish Abriil muran kale ayaa dhex maray Samaax iyo dariska, laakiin markaani waxay go'aansatay wax walba inay duubto. waxayna soo saartay teleefonkeeda, markaasi waxay ka duubtay muuqaal weliba iyagoo ku xadgudbaya. waxayna keensatay muuqaalkii Samaax. waxay go'aansatay haddii marka lagu xadgudbo inay tagto maxkamadda kana gudbiso dacwad iyadoo muuqaalka u gelinaysa cadeen ahaan. markii ay duubtay muuqaalka, waxay rabtay inay ku xirxirto ama inay ku ilaaliso dariskeeda iyadoo dhehaysa kan ayaa cadeen yahay aniga. laakiin hal mar ayaa waxaa dhacay wax aan la filaynin, taasi
sababtoo ah waxaa la xaday boorsadii Samaax. dhibaatadan waxay ahayd in boorsada aysan jirin meel ka baxsan guriga, waxaana ku jirtay gudaha shaydaanka gurigeeda. ma aha xatooyo caadi ah, mana jiro qof ajnabi ah kasoo galay dariiqa si uu u xado. arrintu markaasi waxay ahayd mid cabsi badan. qofka xaday boorsada wuu garanayay, wuu ogaa meesha ay ku jirto, wuxuu ogaa inay duubtay muuqaalka caddeynta ee dariskeeda. boorsadaasi ma aysan ahayn boorso caadi ah, sababtoo ah waxaa ku jirtay telefoonkeedii, kaasi oona ku jiray muuqaalkii caddeynta ee falalka dariska. sidoo kale boorsada waxaa ku jirtay lacag, dhammaan waraaqada iyo alaabtii gaarka ee ayada lahayd. laakiin Samaax waxay ka shakisaneyd alaabtaas inay ka qaateen dariskeeda ilmihiisa, sababtoo ujeedadooda ugu weyn waxay ahayd telefoonkeeda si ay u tirtiraan muuqaalka caddeynta ah. markaasay go'aansatay inaysan sii dulqaadan karin, waxayna tagtay saldhigga booliiska ugu gudbiso dacwad rasmi ah, iyadoo sheegtay in dariska iyo carruurtiisaba guryaha ay usoo galeen oo ay ka xadeen alaabteeda, maadaamay ogeed in iyagu keliya ay awoodaan inay sidaas sameeyaan. kadib markii ay dariska ogaadeen inay dacwad ka gudbisay carruurta dariska, ayaa wacay walaalkeedii yaraa, waxayna isku dayeen inay u hanjabaan, sidoo kalena ay qasbaan, iyagoona ku dhaha waa inaad walaasha wacdaa lana hadashaa oo ku dhahdaa ha gudbin dacwadaasi. waxay isku dayeen inay cadaadiyaan oo ay ku yeeshaan saameyn walaalkeedii yaraa. markaasi walaalka wuxuu isku dayay inuu la hadlo walaashii Samaax, laakiin ayada gebi ahaanba maysan jecelin xaaladaas in laga hadlo hadalkooda. waxayna ka xumaatay walaalkeed inay ku dacweeyeen dariska, iyagoona sii wada cadaadis iyo xadgudub ku hayay iyadii gabadheedaba. kadibna hal mar ayaa waxaa baloobayay Samaax. booliiskana markii ay maqleen wixii dhacay, kastoo ay ogaanayeen cadaadiska iyo xadgudubyada, haddana ma aysan haysan caddeyn xiriirinaysa dariska, carruurtiisa iyo dhacdada. waxayna u baahnaayeen inay helaan caddeyn kale oo buuxda. markaasi ay booliiska u xulbaadeen markhaati ama xog xoogan. markaas ayna bilaabeen inay wareystaan Naahid, gabadha Samaax oo joogtay marar badan dhacdooyinka iyo khilaafka meeshaasi ka dhacay. Naahid ayaa la yaabtay arrintaasi iyo weydiintaasi, markaasi ay sheegtay wax walba ay ogeyd, iyadoona sheegtay hooyadeed inay dhahday ka hor intaysan guriga maanta waxaa dhici doona waxaan caadi ahayn, iyadoona ku dhahday hooyadee waxay dheesay qalbigeyga maanta ma tegnaa, waxaan caadin ayaa soo socda baxaya, laakiin ma huwa wixii dhici doono ayay igu dhahday hooyadee. ay ku dhahday markii hooyadeed ay baxday iyadoo walwalsan, mid kamid ah dariska ayaa bilaabay inuu kusoo gargaraaco albaabkaas. albaabka soo gargaraacayn waxaa lagu magacaabayay Baata, taasi oo ahayd Samiixa saaxiibadeeda, taasi oo la degan dhismaha. warkoodana wuxuu ahaa mid dhow oo aad u xoog. Naahid markii ay maqashay Baata oo garaacaysa albaabka, waxay ugu jawaabtay shaybaarka musqusha. markaasi Baata waxay weydiisay Samaax ma joogtaa guriga, Naahidna ay ugu jawaabtay maya, dhowaan ayay ka baxday xaafadda. Baata waxay u sheegtay inay malaynayso Naahid inay aragtay Samaax iyadoo galaysa guriga dariska dabaqa hoose, laakiin ma aysan hubin inay dhab ahaantii tahay Samaax. mar ayaa waxaa la arkay qof galaya guriga dariska, xiriirkooduna ma uusan ahayn mid fiican. Naahidna waad fahmi kartaa waa gabar yar, waxaasoo Baata ka hadlaysana ma aysan fahmin waxay ula jeedo. Baata markaasi waxay dareentay laga yaabo inay qalad tahay, sidaas darteed waxay ka tagtay arrinta. booliiska markii ay maqleen warka Naahid, si toosa waxay ugu tageen Baata, iyadana waxayba sheegtay dhammaan sheekadii oo dhan. waxayna sheegtay inay aragtay qof u eg Samaax oo galaysa guriga dariska, laakiin waxay ku dhahday aniga ma hubo inay tahay Samaax iyo in kale 100%. booliiska markaasi ay waxay go'aansadeen inaysan mar kale aaminin xaaladda. markaani waa markay qasabkeed inay qaadaan tallaabo. markaasi ay waxay go'aansadeen inay baaritaan ku sameeyaan guriga dariska. markii ay galeen oo ay baareen guriga, waxayba markiiba dareemeen uraan caadi ahayn oo aad u soo urayay, kaasi oo jir ah, sidoo kalena daay wuxuuna kasoo baxay dhanka iyo jikada. markii ay jikada u dhawaadeenna urkii wuuba sii xoogaystay. markaasay fureen qaboojiyaha, markaas oo ay ka heleen madaxii iyo gacmihii maqnaa, qaybtii la raadinayay ee jirka Samaax. markay booliiska ka heleen qaybtaasi gudaha qaboojiyaha guriga dariska, waxay xaqiijiyeen shakigooda inuu sax ahaa. dariska ayaa ahaa dilaagii dilay Samaax. walaalkeedii Naahid waxay markii horeba dareemi jireen khatar, waxayna dareemi jireen ciddan inaysan ahayn cid aamin ah. dariska had iyo jeer dhibaateen jiray, aflagaadeyn jiray, dhibaatana waa abuuri jiray, laakiin ma aysan filin arrinta gaari doonto heerkan argagaxa leh. mana aysan filin faldambiyad leh noocan inay ku dhaqmi karaan. laakiin gebi ahaanba Naahid markii la qabtay dembiga, waxay ka hadashay wax cabsi leh, aan la filaynin nolol ahaan inay dhici doonaan. Naahid waxay sheegtay markii hooyadeed ay kasii bixisay guriga, ay u oroday si ay u aragto hooyadeed iyadoo ka daawanaysa shaybaarka musqusha ama daaqada musqusha. iyadoona kor ka daawanaysa ayay waxay aragtay dariska oo jiidaya hooyadeed dariiqa hoostiisa weliba, isagoona gelinaya markaasi gurigiisa. waxayna gacanta saartay afkeeda, dibna waxay si xoog leh u xirtay albaabka. Naahid waxay sheegtay in qalbigeeda uu jabay markay aragtay, waxayna maqashay dhawaaqyo waxyaabo la reexreexayo, dharbaxo xoog leh, kadibna qaylo khafiif ah ayay dareentay iyo cod daciif ah sida hooyadeed oo nafteeda u dhiibaysa iyadoo leh ka taxadar gabadhayda. kaloo eego dhammaan cadeymahaas iyo warka gabadha, booliisku waxay si buuxda u xaqiijiyeen faldambiyeedkaas inuu geystay dariska. markay booliiska galeen guriga dariska, isagii carruurtiisaba markaasi ma aysan joogin, way baxsadeen iyagoo ka baqaya in booliiska ay soo qaban doonaan. dhowr maalmood kadib booliiska waxay awoodeen inay ogaadaan halkay ku dhuumanayaan, iyaga oo qabtay una gudbiyey xarunta booliiska. markii dariskii lasoo qabtay lana fariisay xarunta, waxaa si toos
toosa loo weydiiyay yaa kula jiray yacni isla waqtigaasi dembi yaa kula sameynayay yaase ku caawinayay booliiska ay dadka kale meeshaas joogeen oo idil bixi hubinayeen oday jira 60 sano inuusan sameyn karin waxyaabahan markaasi odayga deriska wuxuu sheegay inuusan caawin qofna aniga kaliya ayaa sameeyay ku dhahay man uusan jirin qof ii caawiya caruurteeda kamid ah markaas ay wuxuu isku dayay inuu iska difaaco isagoona sheegay in dhibaatada ay bilowday markii ay samax ka gudbisay dacwadaasuna cadeen waa inay eeda dagaalka bilowday wuxuuna sii raaciyay eedu waxay doonaysaa anaga inaan u ciqaabto cadaalad daro iyadoo isla markaaba doonaysay inay sare u qaado qiimaha guriga balse aniga maan awoodin ayuu ku dhahay lacag intaas laakiin aan dhiibo markii aan diidayna inaan kordhiyo qiimaha maalin kasta waxay ugu samayn jirtay ku dhahay dhibaato mar kale dan wuxuu dhahay deriska kale waxay ka dhaadhicisay aniga inaan dhibaato u geysanayo laakiin xaqiiqda waxay tahay ayuu ku dhahay dhab ahaantii eeda aniga dhibaato ii geysanaysay kaasi uu ku dhahay dhibaatada eeda ee aniga ma aanan ahayn kaasi wuxuuna si qabo u dhahay markii samax ka gudbisay dacwad oo sheegtay in la xaday boorsadeeda iyadoona sheegtay in deriska iyo caruurtiisa bay xadeen boorsadaas markaas waxaan go'aansaday ayuu ku dhahay inaan ka takhaluus oo aan dilo eeda wuxuu ku dhahay waxaan bilaabay maalin kasta inaan la socdo eeda anigoona arkaya goorta ay guriga ka bixayso iyo goorta ay soo laabanayso waxaan hubinay ayaan ku dhahay haddii ay qof arkayso ama haddii jaranjarooyinka kaligeed ay soconayso isagoona raaciyay balse maalmaha kamid ah qorshiga waxaan go'aansaday inaan fuliyo oo waan sameeyay guriga waxay uga baxday si ay u soo iibsato agabka guriga jaranjaradun waxay ahayd maalintaasi banaan cidna ma soo socon markaas waxa sameeyay ku dhahay waxaan gacanta ku dhiftay afkeeda ahaantan waxaan u jiiday gudaha qolkayga kaasi ayaana ka bilaabay dembiga tanina waxay arkaysay Nahid iyo waxay arkaysay deriskii baata ahayd markaas ayuuna sii raaciyay ma filinin inay waxaan dhici doonaa tan waxay ahayd samax oo loo jiiday gudaha guriga markaas ay wuxuu qirtay ninkaani gurigiisa inuu ka geliyay si xoog leh oo ku dhuftay madaxa isla markaana uu sameeyay inuu garaaco iyo inuu dilo wuxuu bilaabay inuu jarjaro oo uu qeybiyo si qaybiin uu qabto kadibna uu gilgiliyo bacaha isla mar ahaantan uu ku tuuro meelo la qorsheeyay si aan loo dareemin meelaha uu ku tuuray iyo qorshaha uu kaleeyahay intaba markii uu tuuray qeybaha ugu muhiimsan ee jirka wuxuu go'aansadayba madaxa iyo gacmaha inuu dhigto meel wuxuuna ku dhahay markaasi waxaan go'aansaday inaan gashto qaboojiyaha si uusan igaga shakin qofna isagoona sugayay inuu tuuro waqti ku habboon balse booliiska waxay soo galeen guriga hor inta uusan fulin qorshihiisa waxaaba laga yaabaa adiga inaad isweydiiso maxaa ka dambeeyey dembiga midaani keliya wuxuu u sameeyey naceeb maya qorsho wuxuu ahaa inuu ka takhaluso samax si gabadheeda Nahid ay uga baxdo guriga kadib markii ay waado hooyadeed isagana uu sidaas ku iibsado gurigii dhammaan guriga wuxuu xiiseynayay inuu iibsado weliba uu ku iibsado qiimaha uu isaga doonayo isagoona markaas samax arkay caqabad uu ku heli lahaa dhismaha maadaama dembigu ahaa dil qorsheysan hore loo diyaariyay deriska ayaa qirtay dhammaan faahfaahinna ka bixiyay qeybaha jirkana waxaa laga helay gurigiisa qaboojiyaha weliba mana jirto wax shaki ah oo laga qabo inuu galay dembiga dhammaan tilmaamahan waxay muujinayaan in xukunka uu noqon doono mid adkaanaya oo dil ah balse maxkamadda weli way sii socotaa booliiskana waxay bilaabeen baaritaano dheeraad ah si loo xaqiijiyo inuu keli ku yahay amaba inay caawiyeen caruurtiisa run ahaantiina waxaaba macquul ah inuu isaga keliya fuliyay dembigani laakiin caruurtiisa waxay ka caawin karaan gudaha guriga maxaa yeelay waa wax aan la rumaysan karin nin 60 jir ah oo keligii sameeyo faahfaahintan ama dhibaatadan ama dilkan markaan waxaa loo wareejiyay abtigeed nasiib daro ma jiraan warar dheeraad ah oo ku saabsan kiiska ama xukunka waxaan la rajeynayaa in kiiskan dib loogu soo noqon doono si ay Nahid xaq u hesho oo ay hooyadeedu aragto cadaalad mid kamid ah TV-yada wargeysyada ayaa wuxuu ku booriyay in dawladda ama hay'adaha caalamiga ah caawiyaan Nahid si ay u maareyso nolosheeda maadaama hooyad lacag ku kadsatay bangiga looguna talagalay mustaqbalkeeda hooyad ayaana sheegtay haddii aan maanta awood u yeeshan wax ka qabto yaabinaan beritole aan awoodi waayo doonayaan waxaan ka doonaynin dawladda inay ka caawiyaan waxbarashada iyo nolosha caadiga ah ee Nahid waxaan lagula talinayaa Nahid inay hesho daryeel nafsi ah maadaama wax ay aragtay aysan ahayn wax caadi ah saaxiibayaal waa bil Ramadaan aan u duceyno walaashayna Samax sidoo kalena aan u duceyno gabadheedii yareed ee Nahid si ugu noolaato nolol qurux badan sidii tan hooyadeed oo kale aysan ku dhicin waa muuqaalka maanta fadlan commentiga ku soo qor aragtidaada waxyaabahan ku soo sheegin waa waxyaabo cabsi leh oo run ah ee moodin film Netflix waxyaabahan noocan oo kale ayaa ka dhaca dunida Carabta oo saameyn weyn ku yeesha walaal adiga naftaada ilaali ilaahay ha ku dhowro insha Allah tan iyo muuqaalkayga assalaamu calaykum